asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka baraarug oo ah barnaamij taxana ah oo looga hadlo dhagarta maleeshiyaadka al-shabaab ee bulshada ay markaasi u geystaan, iyadoo barnaamijyadii hore aan kusoo qaada dhignay caqabadaha iyo culeysyada dhalinyarada ay markaasi u geystaan hadday noqoto inay marin habaabiyaan iyo sidoo kale inay caqabado badan oo la xiriira inay jujuubaan oo qofkii markaasi siyaabo qaldan wax looga dhaadhiciyo ayaan aad markaasi uga soo hadalnay. barnaamijkan waxaan maanta kusoo qaadanaynaa si loo soo afjaro maleeshiyaadka al-shabaab istaraatiijiyad noocee ayaa loo baahan yahay. barnaamijka waxaa maanta marti igu ah shirwac cumar oo ah qabiir dhanka amniga ah, wax badanna markaasi kusoo jiray hay-adaha amniga marka ay noqoto dhanka la dagaalanka al-shabaabna door markaasi muuqda ka soo qaatay. shirwac oo kusoo dhaweynaya marka hore waana kaaga mahad celinayaa marka hore waqtigaaga iyo inaad naga aqbasho ka qaybgalka barnaamijkan. marka xigta si loo soo afjaro maleeshiyada al-shabaab istaraatiijiyad noocee ayaa loo baahan yahay? barnaamijkan sida loo soo afjari karo maleeshiyaadka xag jirka ama argagixisada dhibaatada fara badan ku haya dalkeena oo maantay dowlad la-aanta wadankeena taakada ku ah, dhibaatada ku ah wadankeena. nimankaa horta hore waxaa muddo fara badan ayay dalkan soo xukumayeen. waxay soo bilowdeen kasoo dhibaatooyin fara badan kasoo wadeen wadankan. xiliyadii ay soo bilowdeen waad ka warhaysaa 2006 maanta aan marayna 2024 dhibaato fara badan ayay ku hayaan dalka. dowladeena federaalka Soomaaliya marba qeyba looga soo xiribtirayay deegaanada ay kaga sugan yihiin maleeshiyaadka. sida aad ka warhaysaba dagaalka xag jirka marxalado fara badan oo soo qaatay, marba meelaa la soo gaarsiiyey. maanta waxaan aaminsanahay meeshii ugu fiicneed ay maraysaa in la soo afjaro. wax yar ayaa ka haray. waa gartay. tan iyo intii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda oo kale dadaalo badan iyo sidoo kale waxaa jira howlgallo baaxad leh oo gobollo iyo degmooyin badan oo ka tirsan dalka looga saaray kooxan. ilaa iyo hadda tallaabooyinkaas la qaaday istaraatiijiyadda lagu soo afjari karo maxaa iska bedelay? madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii la doortay iyo haatan wax badanaa qabsoome. deegaano fara badan oo maleeshiyaadka ay ku sugnaayeen oo dalka laga xoreeyey welina wuu socdaa, ma joogsan ciribtirkii khawaarijta. hadda deegaano yar ay ku soo arooreen. inta yarta ay ku soo arooreen sidaad ognahayba shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo saldhigyadooda ugu waaweynin ahaa maanta way haawanayaan dowladda gacanta ku hayso. galgaduud iyo hiiraan waa sidoo kale waa laga soo afjaray. qeybo yaroo kamida mudug unbay hadda ku harsan yihiin. intaasna waxaan rajeynayna in dhowaan lasoo afjari doono. markaan usoo laabano dhanka iyo jubbooyinka iyo koonfur galbeed bakool deegaano kamida ee qeybo yaroo ku harsan. sida muuqato hadda waxaan ku jirnaa ifafaalihii lagu soo afjari lahaa maleeshiyaadka khawaarijta iyo kacdoonkii shacabka oo door weyn ka qaatay la dagaalanka maleeshiyaadka argagixisada. middan in shacabka la kaciyo waan ognahay in gobolka hiiraan oo kale deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan waxaa aada u kiciyey oo 80% dhihi karaa in ay kaalin muuqata ka qaateen dadka deegaanka oo hadda macawiisle loo bixiyo ciidan abaabulan oo dabcan dowladdu siyaasadda gaar ay ka leedahay la nidaamiyo ah. dadka oo la kiciyo door ama kaalin noocay ka qaadan kartaa in la soo afjaro kooxahan? kaalin fiican ay ka qaadan kartaa sababtoo ah dowladda lagu sheegayo waa shacabka hadduusan dowladda la jirin dowladda ma dhismaanayso. nidaamka dawligana sideedaba shacabku ka imaada. ciidan iyo shacab way wada shaqeeyaan. sida hadda aan aragnay ciidamada macawiisleyda la yiraahdo ee deegaanadaas hadda ka shaqeeya waa ciidan la shaqeeya, waa ciidan deegaanka oo isku tashtay oo ka hortagaya khatar kasta kaga imaanaysa
dhanka argagixisada caawinaya garab siinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walbaba cadowga ku jirana qayb ka ah la dagaalankooda marka kaalin fiican ay ka qaateen deegaano fara badan hadda waa lagu guuleystay howlgalladoodii deegaanada dhimanna waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay ayagana laga dulqaadi doono maleeshiyaadka xag jirka ee arxanlaawayaasha oo gumaad ba-an ku hayay muddo badan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedba in loo midoobo hal mowqif awalba waa laga tagnaya mowqif laga wada qaato inta dhimanna la israacsiiyo taasaan rajaynayaa waa gartay howlgallada hadda socda oo dalka ka socda oo ha noqoto duqeymo dhanka cirka ah ha noqoto howlgallo dhanka inventory-ga oo ciidamada dhulka ay sameynayaan oo kale iyo sidoo kale hay'adaha sirdoonka in xuraan badan uu jiro xogo badan howlgallo noocaas oo kale ay jiraan ilaa iyo hadda degmooyinka dowladdu ay la wareegtay ama deegaanada dowladda laga qabsaday bulshada loogu tagay dareen noocay muujinayaan ku celiya su'aashaas deegaanada al-shabaab lagala wareegay ama degmooyinka haatan dowladda ay kala wareegtay bulshada loogu tagay dareen noocay muujinayaan deegaano fara badan oo Soomaaliya ka mid ah oo ciidanka xoogga dalka ama ciidamada deegaanka ama kuwa maamul goboleedyada iskarabsanaya ay ka qabteen nimanka xag jirka way jiraan deegaanadaas bulshadii ku nooleed dhibaato fara badan ay ku jireen xagga caafimaadka nolosha asaasiga waxbarashada meel walba way ka burbursanayeen 12 sano ee nimankan ariga haysteen waxaad muuqata hadda in noloshii dowladnimo iyo iftiinkii nololeed ay hadda helayaan deegaano fara badan oo laga qabtay maleeshiyaadka in hadda iskuulaadkii la furay adeegii caafimaad la bixiyey adeegii koronto la siiyey dhinac walba nolosha ka mid ah ay hadda soo iftiimayaan ay filaan nolol fiican inay hadda heleen nolol ka dhaanta noloshii hore inay hadda haystaan bulshada ay aaminsan yihiin oo dowladnimada ah islaamka oo kale markaan ka tagno caalamka oo kale madaxweynayaal badan oo hadda waxaa jira oo adduunka ah oo hadda ugu dambeeyay madaxweynaha Kenya William Ruto oo kale oo joogay Mareykanka oo kale in madaxweynaha Mareykanka uu la wadaagayay in al-shabaab laga taqlusay badi qatartoodii hadda la soo afjaray laakiin haddii dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika iyo kuwa caalamka iskaashanaya dadaalkoodii la sii dhimo in qatartii ay soo bixi karto arrinta maxaa ka leedahay arrintaas uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu ka dhawaajiyay ama kuwa kale oo asaga la midba ay qabaanba oo geeska Afrika ah waxaan aaminsanahay danahooda bay ka hadleen danta Soomaaliya kama hadleen danta Soomaaliya maanta waxa uu ah ciidanka xoogga dalka oo la qalabeeyo danta Soomaaliya maanta waxa horumar u ah ciidankeeda bad iyo biriba dhaqaalihii lagu bixin jiray AMISOM in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu bixiyo sababtoo ah ninkan dantiisa iyo wuxuu ka arkay dantiisa uu ka arkay wuxuu maanta ka hadlay in uu Soomaaliya burbursi ahaato in Soomaaliya al-shabaab ay ku sii jiraan buu ka arkay laakiin si haddii loo fiiriyo ma aaminsana geeska Afrika dhibaatada Soomaaliya kelima ah iyo gudaha Kenya ay sii gali doonto haddii nimanka Soomaaliya ka sii jiraan xididkooda dal la siibin hore waa tuu u dhigi jireen nimanka mas waxaan la diriraynaa mas afkiisa ishagaan Kenya yaalo dawadiisana Soomaaliya ku taalo aan la diriraynaa dhigi jireen nidaamkaas inay hadda ka sii qatarsan tahay aaminsanahay oo hadda maska ay sheegayeen in ayaga ay dhaqaaleynayaan ay quudinayaan aaminsanahay waayahay uu mahadsan yahay Shirwac Cumar ayuu kaasi ahaa oo qabiir dhanka amniga ah muddana ku soo jiray hay'adaha amniga dalka wax badanna markaasi ka soo qayb qaatay howlgallada dalka looga xoreynayo al-shabaab barnaamijka ayuu martay noogu ahaa dhegeystayaal guud ahaan waa mahadsantihiin qaybaha kale ee dhegeystayaasha ayaan u gudagelaynaa waayahay intaas aan kaga gudubno waraysigaasi dhegeystayaasha ayaan siinaynaa dhegeysta ayaa qad ku jira halo asalaamu calaykum waa ku soo dhaweynaya walaal magaca halkaa joogto waa aadan cabdi geedi magangale aadan waan ku soo dhaweynayaa xaafadee joogtaa xaafada golwade galab wanaagsan aadan barnaamijka haddii aad la socotay gudagal bal fikirkaaga iyo qaabka ugu habboon ee markaas leedahay dhalinyarada iyo si guud wacyigelin waa loo siin karaa gaar ahaan istaraatiijiyadda ugu habboon ee markaasi lagula dagaalami karaa cadowga dhalinyarada waa lagu dhiirigelin karaa in la furo
dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada waxyaabo badan ayay u qaban karaan bulshada dowladana fikirka lagu shugaa waa in ay aad ugu dhaliilaan oo ugu soo horjeestaan fikirka dhalinyarada lagu shugo dowladana waa inay ka fikirtaa dhalinyarada sida ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd. waa hagaag waayahay dhegeystahaasi waan uga mahadcelinaynaa sida qurxoon uu markaasi barnaamijka uga qayb qaatay. qeybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaan markaasi taagannahay iyo gaar ahaan qeybaha dhegeystayaasha 27814 ay dhegeystayaasha barnaamijka qeyb kaga noqon karaan oo aragtidooda ay ka dhiiban karaan. dhegeystaha xigaan siiyo. asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راديو كسمايو دمان وإذن سلام يا مبيعي وعبد الرحمن محمد عبدي وقاسة وعي حافظة نيو كسمايو دمان وحيد ليه قلب وناسا عسري وناسا عسري وناسا عبد الرحمن إن برنامج كآت هذا نيروس أيان خطو علي إن فكر كي قدان كدي توحان أورون لهاي أنا يرده وحيا لبدن أيا لو باهنيا إن لوغو وعي قريو توسطه فكر كات إن لوغو لحيو وحلو باهن دولة إني معنا يوقفتو waxaa loo baahan yahay in naftirkooda wacyigelin loo sameeyo sir loo qabto oo dhalinyarada meel iskugu keeno kii aqoonta lahay kii aqoonta lehna loo yeero kii macnaha aqoonta leh waxaa loo baahan yahay shaqo abuur loo sameeyo kii aqoonta aan lehna waxaa raba waxbarasho loo geeyo marka waxaa loo baahan yahay mar walba inay fikirkaas macnaha iyagoo macnaha fikirkaas aan ku fikirino mar walba ay ku fikiraan sidii mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe iyo dalkooda iyo dadkooda ilmahooda inay wax ugu qaban lahay inay ka fikiraan ayaa mar walba habboon ayaan dhihi lahay. fikirkaas waa fikir qaldan in la qaadan ma aha marka dhalinyarada waxaan ku guurinayaa in fikirkaas aysan qaadanin ayaan ku guurinayaa marka dhammaan marka sharafka iyo maal adiga dhammaantiin waxaan leeyahay galab wanaagsan casri wanaagsan ayaan idin leeyahay. waayahay galab wanaagsan casri wanaagsan ayaan leenahay. master cabdiraxmaan uu mahadsan yahay sida qurxoon uu barnaamijka uga qayb qaatay. waayahay weli waxaad degeysanaysaan dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka iyo dhegeystayaasha ayaan markaasi taagannahay aragtiyahooda maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij wacyigelineed u baahan dhalinyarada inay aada u baraarugaan ayna fikirkooda iyo aragtidooda ay ka dhiibtaan 2781444 ayaa dhegeystay barnaamijka qeyb kaga noqon kartaa oo aragtidaada aad ka dhiiban kartaa. waa 2781444 ayaad barnaamijka kaga qeyb qaadan kartaa. barnaamijka baraarug ayaad degeysanaysaan qeybihiisii u dambeeyey. waayahay dhegeysta ayaa qad ku jira. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعبد الرحمن ومركز رسول الله بتاعي dhalinyarada aan kuduusinayaa dama boqolkiiba 70 isha dhalinyarada in masaaf liida marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada in ay noqdaan maadaama 75 ay in oo lagu tilmaamay waxaa loo baahan yahay inay noqdaan dad dalkooda iyo mustaqbalkooda ayagoo danba wax qabsan inay noqdaan waayo mustaqbalka danba waxaa loo baahan yahay ay inay wadankii ay ku goominayaan ayaa loo baahan yahay inay wax noqdaan waayo dadka hadda maanta oo hililka macnaha hayo dhammaantood waxay u badan yihiin odayaalo iyo dad macnaha waayeel duqoomay waayeel waxaa loo baahan yahay maskaxda inay macnaha dhalinyarada ku kordhiyaan dhalinyarada waxaa waye waa xoog loo baahan yahay inay dalkii wax u qabtaan loo baahan yahay marka dhalinyarada waxaan ku doorinayaa inay xoogooda ay maalaan oo maskaxdooda ay ka shaqaysiyaan oo wax bartaan oo waxbarashada ku dadaalaan aayahooda dambe iyo mustaqbalkooda dambe si wax u qabsan lahaayeen marka taas ayaan ku doorinaya mar labaad waxaan idin leeyahay galab wanaagsan casri wanaagsan. waayahay galab wanaagsan ayaan leenahay. cabdiraxmaan uu mahadsan yahay dhiirigelinta iyo wacyigelintaasi uu siiyey dhalinyarada si guud oo uu ku mahadsan yahay. cabdiraxmaan aada ayuu u mahadsan yahay. waayahay qeybihii dambe ayaad degeysanaysaan. waayahay weli waxaad degeysanaysaan gabagabadii barnaamijka baraarug oo idinkaga imaanaya radio kismaayo codka dowladda jubbaland. dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa iyo kaalimahooda. dhegeystayaal badan ayaa dhanka fariimaha iyagana fikrado nagula wadaagaya. dhegeystahan waxa uu kusoo koobay magaciisa cumar oo aan jooga ayuu leeyahay xaafadda isku filan ee dhalinyaradu maanta waa kuwa baraarugsan marka loo fiiriyo xiliyadii iyo sanadadii hore oo ay cid kasta isaga nacamleyn jireen laakiin maanta danahooda iyo aayahooda ayay markaasi u taxadarayaan oo u dagaalamayaan ayuu markaasi leeyahay. marka ay noqoto cadowga iyo argagixisadana aada ayay uga digtoon yihiin wayna sii wadayaan in ay bulshada qeybahooda kala duwan aragtiyahooda siiyaan. waayahay cumar oo isku filan jooga ayaa aragtidaasi inoo soo qoray. dhegeystaha kale haddii aan sii raaciyo faadumo maxamed oo joogta dalcadda aragti ahaan waxaan qabaa in dhalinyarada loo sameeyo seminaaro iyo madallo dabcan waayahay aragtiyo iyo madallo
dhalinyaradaasi laisugu keenayo aragtidooda iyo fikirkooda loogu gogol xaarayo in ay tahay kuwo ay markaasi dowladda ku taageerayaan iyo kuwo ay uga soo horjeedaan cadowga dowladda. waayahay faadumo aad ay u mahadsan tahay. dhegeystayaasha dhanka laynka ayaan siinayaa dhegeystaha qad ku jira. halo asalaamu calaykum. halo waayahay dhegeystahaasina qadka ayaa markaasi ka go-ay. dhegeystayaasha sidoo kale aragtiyahooda qaab qoraal ahaan way nagula wadaagi karaan oo fariin gaaban ayay noo soo diri karaan oo kooban oo ku saabsan mawduuca miiska noo saaran, aragtida ay ka dhiibanayaan iyo sidoo kale inay toos usoo wacaan. intaba labadaba waa laba dooq oo furan oo dhegeystayaasheenna ay barnaamijka qayb uga noqon karaan. barnaamijka baraarug iyo qaybihii u dambeeyey ayaan markaasi taaganahay. 2-7-8-14-44 soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto. aragtidaada iyo fikirkaaga ayaanad barnaamijka qayb kaga noqonaysaa, maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij wacyigelineed oo dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed si gaar ah diiradda u saarayo in dhalinyarada ay qaybtooda lixaad kale ay markaasi ka qaataan oo ay ka aragti dhiibtaan. ayaa markaasi mawduuca miiska inoo saaran uu aad markaasi u taabanayaa. 2-7-8-14-44 soo beegso dhegeyste si aad barnaamijka qayb markaasi uga noqoto. waayahay dhegeystayaal, inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii baraarug ood kala socoteen radio kismaayo codka dowladda jubbaland. intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga, nabadgelyo.